warshadda shaaha waxaa ruxay 3 wiigo bilaa xarakaada kadib markii gebi ahaanba la joojiyey howlgal kasta oo ay qaban jireen hadda ayay dib ugu soo laabteen goobihii shaqada hindiya waxa ay leedahay shaqaale weyne ilaa 1 bilyan oo qof ah kuwaasi oo in ka badan 1 milyan oo ka mid ah ay ka howlgalaan warshadda shaaha gobolka Assam dib ayaa shaqada ay u bilaabeen kuwa shaaha gura laakiin shuruucda kala fogaanshaha ee gobolada qaar lagaga dhaqmo ayaa macnaheedu yahay inaan qof walba loo ogolayn inuu shaqeeyo dohri nagbaanshi weligeedba beeraha shaaha ayuunbay ka shaqayn jirtay shaqadan shaaha gurista waxa ay 40 sano ka hor ka dhaxashay walaasheed beerta shaaha ayaanu ku noolayn halkee ayaanu tegi haddii shaqadu joogsato ma haysano wax kale oo aan samayno haddii aan dhul noo gaara leenahay annagaaba beeran lahayn mar haddii shaqadii beerta shaahu sidaa meesha kaga baxday maxaanu cunnaa Fichai Zinch oo ah ninka ay u shaqayso dohri waxa uu la dawaqsan yahay xisaabinta khasaarihii ka soo gaaray shaahii hore ee beerta ka soo go'ay si aanu mar labaad u khasaarin ayuu isku tashaday laakiin imika waxa uu gebi ahaan ka warwarsan yahay mustaqbalka ganacsigiisa shaaha waxay dhibaato naga soo gaartay hakadka ku yimid agabkii lagu shaqayn lahaa baqaaradii kaydka oo xiran xitaa ma dhoofin karno shaahii aynu soo saarnay horaantii xagaaga weli waxay ku xaniban yihiin warshadda ilaa 3 toddobaad tani waxa ay saamaysay dhaqdhaqaaqii lacagta maanta xaaladda dhaqaale ee galbeedka India waa mid dhutinaysa laakiin soo kabanaysa dhammaanba kuwa shaaha soo saara way saamaysay waxaana lagu qiyaasay in warshadda shaahu ay khasaartay ugu yaraan 132 milyan oo dollar malaayiin halkan iyo daafaha kale ee caalamka joogaaba waxa ay ku raaxaystaan cabitaanka koob shaaha maalin kasta laakiin qaar ka mid ah hindida bilaa camalka noqotay wixii ay haysteenna ay ka dhammaadeen intii isku socodka la joojiyey ma awoodi doonaan xitaa qiimaha jaban ee shaaha lagu cabo waqti dhow maadaama guud ahaan dhaqaalaha hindiya uu hoos u sii dhacayo kaliya ma aha cidda ay arrintu saamaysay kuwa shaaha sameeya iyo kuwa gura balse cid kasta way saamaysay mustaqbalka dhaqaale ee hindiya lama saadaalin karo laakiin qaar ka mid ah kuwa falanqeeya ayaa sheegaya in 4% uu hoos u dhici karo sanadkan waana khasaare 100 bilyan ah waxaana ay ka badan tahay kharashka dawladda dhamaystirmaasho sanadkii 4 meelood oo meel ahaan hindiya waa dalka kontonaad ee adduunka ugu dhaqaale badan laakiin labadii bilood ee u dambeeyay ayaa tirada dadka shaqo la'aanta ah ay 3 jibaarantay dadkooda oo tiradoodu ay tahay bilyan iyo 300 milyan kuwooda ugu haynta yar ayay soo wajihi doonaan caqabadaha ugu daranay